difaaca ugu horeeya maxaan ku dhahaa difaac waxa lagu sugaa weerar magaalo haddaad aragto ammaankeeda qori lagu sugaayo ammaan kama jiro magaalo haddaad aragto madaxdeeda qori ku dhex wadato ammaan kama jiro adduunka meesha keliyo nin madaxu hadduu rabo inuu tima soo jirto dabajeex lagu waardeyn horta muqdisho ka jirta wejigaas in laga bedana very important waa muhiim hadda xakamaynta hubka ayaa la sheegay waa la soo xakamay dabajeexi meelaa la soo dhigay tiknikadii meelaa la soo dhigay 2024 waxaa la rabaa qoray in laga mamnuuca magaalada dadku dabaalma marka qoryaha jidadka lala taagan yahay macnaheedu wadada waxba la caburnayaa laakiin qoryuhu markay qarsan yihiin dadku si kasta amaan dar u tahay sense of security diraan nabadu dareemoya London lagu ilaaliyo qoray Dubai lagu ilaaliyo Nairobi lagu ilaaliyo meel qori lala taagan yahay adduunka ma jiraan sababtuna waxay tahay qori meel lala taagan yahay nabadu kama jirto annaga waxaan la ka rabaa marka wasiirada ra'iisul wasaare Cabdi Bilayaasha lagu waardeynaa horta Cabdi Bilayaasha ka reeb oo jidad ku furnaa magaalo sideedaba ammaanka impressionkiisa koobaad ku dhigis waa magaalo qoryaal magaalo ammaankeedu sugan yahay ma haddeertaan aniga laba mar aan tilayn abu sugid soo noqdo hadda inaan sheego ma rabo weligay magaalada muqdisho qoray kuma qaada in my life iyo hadda shaawiga nacibiya ma islaan ana hogaamina waaniga laamiga jidadka soo qeylinaay soo ma magaaladan qoryaha laga dhigo oo qoryahaas dagaalka shabaab la aado ciidanka ammaanka sugay waa mahadsan yihiin ammaanku waa meesha kaliya oo ay tahay qof walba inuu ka shaqeeyo laakiin ma ahan qof walba inuu hogaamiyo traffic kala waa traffic hal baabuurna ma wado baabuurkasana waa wada oo maxay tahay haddii uu jidka traffic taagnayn oo soco adigu istaag saan leh baabuurta isku wada dhacaysa siyaasadda la isku qabqabsan karaa ammaanka la isku qabsan karo waxaa la rabaa ammaanka marka hormoodkiisu in cidda mas'uulka ka ah coordination gobolka banaadir ayaga waxa laga rabaa inay yiraahdaan ammaanka hal sugo sida loo sugayo shaqadooda ma it's none of their business sida loo sugayo waxa mas'uulka cidda amarkaas la siiyay ayagu waa daba taagan yihiin kaalmadii laga rabaa shaqadii laga rabaa wixii dadkan u baahnaa laga rabaa ra'iisul wasaare adiga iyo xukuumaddaadu waa mahadsantiin gobolka banaadir waa mahadsantiin dadka Soomaaliyeed waa mahadsan yihiin shabaab maanta waa dhaawacan yahay hala dhameystiro iyo soo nagu soo kicin maanta oo dhan rajaa wuxuu qabaa inaan daalno oon isqabqabsanno oon shaqada dayacno waxaana la ka rabaa sidii 2023 loo soo shaqeeyay si ka daran in loo shaqeeyo oo la laba kacleeyo guusha waa noo dhowdahay dagaalka la xoojiyo dagaalka lagu noqdo waayahay sanka xaaji horta umadeena ma aha dhaga hadal ayuu wuxuu baabah uga dhigay ya mas'uuliyiintii dalka ugu sareysay dhaga hadal ayuu baabah uga siiyay sidoo sanka xaaji waxa weeye markuu hadlayo oo fagaaro uu taagan yahay waxa weeye horta cid u noolaanaysa male marka meesha uu damco inuu ka hadlay barnaamijka markaas oo rabo markuu inuu ka hadlo marka uu doonayo waxa weeye budka iyo kultumanaya madaxda dalka ugu sareyso ayuu horta ku dhaga hadlaya oo wuxuu leeyahay war tiknikadan iyo baabuurtan dhishikiyaashan iyo dabajeexyadan ya yani saa loola yaacayo wala la iska daaya adduunka meel ka jirta ma loo leeyahay dabajeex iyo dhishike iyo ya 7 la daba taagan yahay nin mas'uul ah adduunka meel ka jirta ma loo Kenya kama jirto Ethiopia kama jirto Djibouti kama jirto wadamada dhammaantriska adduunka meel kasta kama jirto caalamka kama jirto xitaa ra'iisul wasaaraha meesha fadhiyo oo ku laga hadlayo ra'iisul wasaaraha waa ninkii shalay staafkiisa Soomaaliya wixii shalay rasaasinayay baalkii shacabkii dadkii dadweynaha ahay isugu soo baxay garoonka stadium Muqdisho shalay ciyaarey rabay yaa inay ka qayb qaataan ama daawada rabay wax ku shalay dhacay daba jeexar marka uu ku wada dhaga hadlaya dhamaan sida banaanba waxa weeye sanka xaaji hadii horta xil loo dhiibi lahay taariikh u dhigi lahay in badan waa la hadal hayn lahay laakiin xil maanta ma hayo waa iska xil dhibaankiisu meelaas iska jooga laakiin waxa waaye libaax duqoobay waaye maro soo baxa banaanka u soo baxa waa ugaarsana haddana godkiisu ku laabanaya marka
وحاوي هذا وحو يعني لهذا يو أما أكون لقى هذا يا هرتو أما لحد ذاك وصل رئيسه سدا مدحوينها رئيس وزارها وزير ذا طريقها عيدا كا وحيالها ذاك نوع عاس حلبانا ذاك مساكين وايجو وارب اللي يبغى قبك لقد يقول اللي يجري أفرني يوحنا نوع عاس وردية قاتها اللي يجري يا طريقها نبت سجود وحيالها نوع عاس وحول لهذا يو أكون لقى هذا يو هرتو وليه هاي ولا دون كلاي وحنا كم تجران الدون إلهي وحنا كم تجرانه وإن هوب كان سيدا بالله حكمية ها ابني كما تشيرو ويل وانا صح وانا حقيق سيدا بو حواي حواد الله دad aragtaan markuu hadlayo waxa waaye waxa dhabka ah inuu dalkan hagaaga ay rabaan laakiin dadka kale oo dhan laqdaba ka hadlaan laqdaba alla maxay laqdaba ka hadlayaan ya naxwa allah markuu hadlayo wallahi billahi talaay wuxuu ka hadlay si Soomaalnimo u hadlaya dalkan maanta inuu hagaago ayay doonayaan dhamaantoodba nin kastoo hadlayo xawaadla oo siyaasi ah dad aragtaan laakiin dadkan kaleento malaha ma aqaan sidaana baasha ya sidaana xogaa malaha hasha ugu irmaantaan u maleena fowdan dhibaatadan iyo qadjacdan ayay ka helaan u maleena laakiin xawaadle way ka go'an tahay dalka inuu hagaago dowladnimada ay shaqeyso nabad la helo umada barwaaqo iyo basbas iyo baraare inay hesho ya siyaasi kastoo xawaadla hadduu hadlayo والله بالله ترى سيد دبتو كهدلا حقيقته كهدلا ما لقى بدن هذاك سانك حاجينا واتقانانو نين هذا لقى بدن معها وانا نين هذاك يا هيل اوغواي هذاك هو هيل اوغيهي هورا waxa loo yiri ya dooday xawaadle lo xal hadal af ama he xawaadla ku hadlo ama ha ku daaqdo hora loo yiri marka waxa weeye kulay taba sanbaloshe runtii teeramkan dowladdan xasan sheekh horta wuxuu istaahilay xil in la siiyo laakiin xil ma waayino ninaa horta wuxuu ku noqday ya liq ku noqday oo xilka uu ku waayay waana ninkan cabdirasaaq wasiirka leeyahay hadduu wasiir heli lahayna ninkaasaa taagan oo xasan sheekh inta uu joogo ninkaas caanamadaadshaha ah ayuu wasiirka xawaadle ka dhigay taliyahana wasuuda waa istaahilay laakiin haddana waxaa la yiri wixii waa 4.5 ya xawaadle intuu wasiir qaatay haddana taliya ciidan lama sii karo taliya baalka ee taliyana wasugud ma qaadan karaa la yiri horta ninkan sidaasoo ku xil waaye ee xasan sheekh ninkan teeramkiisaan inuu ama wasiir ahaado ama taliyaha nabasuuda laga dhigo mid ayaa horta ku habooneed laakiin odayga waxa weeye waa gaftay odayga waa gaftay marka insha Allah waxaan leenahay hubka magaalada muqdisho lala dhaxyaacayo oo 20ka cabdibile oo wadooyinka markay marayaan shanaxa ku socoto shanna ka horeyso shanna ka dambayso ya waxaas in la joojiyaa wanaagsan sababtoo ah ayaga qalqal ugu filan ba dadweynihii markii la arko 20 gaari cabdibilayaal ah oo nin masuula wado markii la arko ya umadii argagaxa ku dhacayo meel xoogaa jaamkii soo galan xabada la ridaa baba wada lagu kala furnayaa haye meeshas marka ma soo noqomayso soo ma ekaanayso marka magaalada muqdisho magaalo wada fawda ah aan dhihi lahaa marka dowladda waxaan dhihi lahay sidoo sheegaba sanbaloshe waa in hubka la xakameeyaa in yaroo macquule hadduu madaxweynaha socdo wadada in yaroo macquula waardiyaal ah ra'iisul wasaaraha sidoo kaleeto wasiirada sidoo kaleeto taliyaasha ciidanka sidoo kaleeto in yaroo macquul ah oo aan yani ummadana culays u keenin wadooyinkana aan dhibaateynin culaysna aan u keenin in yani wataan ayaa wanaagsan marka dhagaadalka waa dhagaadal free ah oo sanbaloshe dhammaan inta yani qusayso ama hubka la yaacayso tiknikada la yaacayso ayuu si toos ugu dhaga hadlayay marka waxaan leeyahay sanka xaaji وسلامتها أغياري وعلى الله وقت الجواد هذه وعلى مقال كان يشير قريه ولا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته